امسح دموعك فالله غفور رحيم. افتح له قلبك هو الله العليم. امسح دموعك. بسم الله الرحمن الرحيم. نبضي داوديال كسو دوادا mid ka mid a casharrada uu bixiyo maxadka horumarinta bulshada oo ku saabsan sida uu qofka bini'aadamka ahi wax uga bedeli karo noloshiisa isagoo markaasi u bedelanaya tuu markaasi ku sugan yahay mid ka sarreysa. maxadka horumarinta bulshada iyo tababarada oo ah maxad ka howlgala magaalada Nairobi ee waddanka Kenya gaar ahaana xaafadda Islii ayaa ah maxad toddobaadkiiba hal mar bulshada ugu soo bandhiga si qoto dheer oo ay ku dheehan tahay aqoon diini iyo maadi lagu laray waayo aragnimo iyo xirfado la ururiyay iyadoo aan laga tegaynin aqoon isweydaarsi iyo rayiga dadweynaha bulshada ugu soo bandhiga casharro ay ku qaadanayaan sidii ay bulsho u hormariso shaqadooda ganacsigooda naftooda la dhaqanka bulshada ay markaasi la dhaqan yihiin iyo macaamiishoodaba si xirfadaysan oo la taaban karo. haddaba daawadayaal ku soo dhowaada mid ka mid a casharradaasi ay bixiyaan maxadka horumarinta bulshada oo ku saabsan sidayn hore u soo sheegnay sida uu wax uga bedeli karo qofku noloshiisa uu markaasi ku sugan yahay uguna guuri lahaa mid ka sarraysa marxaladda uu markaasi ku jiro. barnaamijkiina waa kane daawasho habboon. maanta waxaynu insha allahu tacaala barnaamijkan noqon doonaa barnaamij runtii aan inta badan laga hadlay laakiin muhiimad aad iyo aad u weyn waa barnaamij waxaa loo yaqaano isbedel ama isbedel wanaagsan. waa mawduuc laga yaabo marka inaan aad loo dhex karin soo saas maa laakiin muhiimad aad u weyn u leh oo kutub badan laga qoray ama baaris fara badan laga sameeyey diinteeduna ay ka hadashay. qur-aanku ka hadlay ilaa 2 jeer ay qur-aanku soo aragtay iyadoo macnayaal kala duwan ah. nabiguna uu ku dhaqmay sallallahu alayhi wasallam. waa waxa loo yaqaano markaa isbedelka. innaga markii ugu horeyso hadda adduunkan hadda la joogo aad loo soo shaabixiyo isbedelka yaa xusuustaa goorteed ya marka maxaa dhacay maalmihii uu Obama noqonayay nimanka dimuqraadiyiinta soo inta badan hadalada kama yimid ahayn waxaan rabnaa isbedel ya waxay ogaayeen inuu yahay mawduuc weyn oo dadku ay jecel yihiin isbedel laakiin way ka baqaan marka taasay inta badan ay ku salaysan tahay mawduucan maanta ka hadli doono. nabigu sallallahu alayhi wasallam maadaama asugu uu tusaale inoo yahay isbedel ma sameeyey ile wuxuu yimi dad qabyaaladii dishay oo dowlad fiican aan ka jirin dhaqaale la'aan ah waxba haysanin isdila habeen iyo maalin diin fiican haynin intaasoo dhan ma bedel laakiin waa lagula celiyo soo maa سأود حتى كون فيلسوف قاركود هو وين وكان واحد هذا سنين وارث لهذا واحد لي هذا ربطه إذا تصل كل عام نظام تاجر السوق ده ينتج أما واحد تاجر والله بنعم سما قبيلات فافطي أما دولة موقف عشان ماي أما واحد جري وايد هذا السوق ده أقول لك العشرين وإحنا نقطة وانت في كل يدقال طلوع ضيق نقطة marka dhowr mawduuc baan insha Allah ta'ala u qaybin doonaa. horta marka koowaad aad iyo aad u muhiim ah xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam la yakun ahadukum imma'a midkiin yuu noqon qof de iska dameer dhaacday ama dabadilifa oo hadii dadku ficnaadaan la ficnaada hadii dadku xumaadaan la xumaado ee waxaan noqotaa qof mar kastaba isbedel كفكرة إسبدل وناكسن ما حد سوكر دين كرتا نرشة هذا ما حد كبدل كرتا شقة هذا ما حد كبدل كرتا وطن كاج ما حد كبدل كرتا ولد حنا خردن ما حد كبدل كرتا وين وقف كفكرة إسبدل كل أبو قيس معه إنه قف إسبدله وهذا قو عمر يا علي هذا إسبدل شو على ده أنا كنت يا إني مجتمع عودن أي بدلان
labada qaybood buu qaybsamay insha Allah inuu ka warrami doono marka laba kitaab baan insha Allah ku wareegi muxwarkan ku wareegi doonaa haddii la ka dhigo oo kitaab leeyahay طالب السويدان منهج التغيير leeyahay iyo kitaabku leeyahay dhaqta fiqi sixr al-qiyada labada mawduuc iyo wixii kale misaalo u keeni karna insha Allah cilmi baarisyo marka wax laga sameeyay salahan waliba iyadoo si aqoon looga hadlayo shirkadaha ay Mareykanka waxay sameeyeen yaa isbedela waxay yiraahdeen 3 meelood oo meel kamid ah iyadoo haddana cilmi ugu wado sidoo adag yahay in la isbedela wala fashilay waxa kooxda ama ka dadka adduunka dhan waxa isbedelay boqolkiiba 98 ka xagee maray jawaynaga ma inagu dhasaba in Soomaali kasta ugu jirta nolol wax baro waxaan wax ka bedel waxaan wax Soomaaliya dadka salaanta inay bedelaan asbaab baan in sha Allah ta'ala asbaabteedu way soo socdaan waxa jira qaanuun la yiraahdo qaanuunka xagga isbedelka caqliga ayaa jira maanta waxa loo dawooduqeeda laga hadlay jiray waduu ka doon inay gali karno waxa waxa muhiim ah cid kasta oo tijaabo keenta ama cid muxuu baraysa ilaga faa'iido soo haddii raahno Einstein ba saajiri ama filosof oo asuna ilaahay ama isla saajiri dawishii aqoon uu gaadhay oo ka faa'iideysan Soomaa وإنه كيف يسنى واحد هنيكا سينسان كا عن كا تغني حتى دون سنة واحد بدي شو يقول لي يا أخي ما بدلي كرنو هذا المسافة واحد بدله صار أنا بحين إبراهيم بدلت صار قبيلة صباح تطبع الله صار محمد علي محمد يا رجل واحد اللي بلقوه يوم مجتمع على قراءة الضوء قبيلة هلا توجي هذا يكون فشلوان والصلاة المصورة ما بدلي كرنو لباتوين كواوين أين حيستا أما مدة وين كرنو إنه استعمالنا عقلي هي طريقة ذي كانت تجيب كلفت بس منو بين بدلي كمان ما أولياء ما ضد بلا حسوق جديد وقيالك شقيا أبو تصالحان إسلام اللي فتقول ما نروح البربرية يا ده وحن عقلي كجيل من الواسط لما بروح الدولة حال بسام ويكون فاشل من إسلام اللي فتقول منو تركنا إنما مرة الدولة بسام مايا وحل النظام كتعليم تا عقابك وحلو برنا اليوم من دوكسي وهوسي إلا صلاة هلا بدلوا أو واحد في عنا لكنه أدونك هلا لا تنعرف طب يكون فاشل ماي واحد عقلك استعمالي هذا عقلك يقول بدله والله تري كراسمه لأنه استعمالي كمان مايا وتصالح شو مكان سوق عندهم وحكى الله من قانون كا إلهنا واسكان نوع قانون كتقدم ماذا إلهنا أهم بس رتا السمايسة وكيف فشل عندهم إسلاسيدي هذا عارن كيا السمايسة نتيجة دينا أتكلم سوتين النتيجة دي كدورة تصورت كميتا شكل ضل معمولة ساعة أما أديها أيام نواشة الربيع المحكمة بدي شوف صاحب بدي ألوس عتي لفت جويد بدي صعد عولي ياس بدي شيء وين ربط النتيجة كمان بس النتيجة صورت كلام يعني صورت كلام مركا واحد شراء إلا الشن الريموت إلا اللح الريموت أو بفك وعاونا يا إنه يسبدلكم معنا خليه بفك يسبدل في كور تاني شن إلا اللح لكن شن بندوس كوبنا بالضبط إني يسبدلان بل إذا كان يتقبل ما حكوا تاني صراحة بس لا تقبل لو يجيبها لا حيسوها عقلي جوال حيساتها مال جوال وحكاور تاني ما محي صراحة ربطها إلى سبعة شغال على وش يا جمال ما حكاور تاني إلى سبعة ما حكاور تاني إلى خبرته وحبا جرى سواء ويسبدل يسبدل كات سمين يسمى حكاور تاني يا يا قدام يا اوكي horta tawgu koobaad
dadka hortaagan waa wax ya dhaqaale ma noqon karta ma dhaqaale wala haysta inta dad waxay iska waxbaraka oo qof waxay istaan sheegan anoo isbedeli kara caqabada kale bay taas ya ko waxyaalaha oo horeeya waxa weeye dadka qofku waqtin baa iskaga jirta aad bay dadku cabsi ugu badan waxay jecel yihiin noloshan iska rootiinka nolosha siday caadiga u tahay hooyada aabbaha sooto saaxiibada magaxyada kula soo sheekayso waxa laga yaabaa inaad wax barato inaad magaalo kale cabsidaasa kugu jirta kow dadka aad iyo aad bay waxa ugu hortaagan waxaa kamid ah inay cabsadaan nin baa siduu sheegay in la yidhahdo karim shaadeg nin aad u caqli badan bu habiy uu soo kacaa subaxdii xaaskiisa ku yidhi adduunyadan adduunya wax laga bedelo maahe anu waa iska seexanaya maalinta adduunyada isbedesho baan isbedelaya muddo ka bacdi adduunku horta adduunku ma isbedelaa ya adduunku isbedel buu samaysan ilahay ugu talagalay laakiin dadkii joogay isma bedelaan habeenay maalin isbedeshaa sanadba sanad buu ku dhiibayaa markay qoraxda isbedelayaan roob iyo dayr adduunka soo maha waxbaa dhacaya mashaakilaa dhacaya asaga wuxuu ku dhisan yahay kownka ilaahay wuxuu ku dhisan yahay inuu isbedelo nabiguna dadku wuxuu ku tarbiyeeyey inay isbedelaan oo haddii waxaan arkaa inay xoog bedelaan soo maha oo waxaan ay adkaysan nabigu markuu soo baxayey sala allahu alayhi wasalam soo nin dhalinyaraan mu ahayn ma awood badan ba haysta laakiin iyadoo wax kasta la sameynaya haddana wuxuu ku talagalay inuu wax bedelo muddo kooban oo dhowr iyo 20 sanana waad aragtaan wax gaarsiin soo ma asagu haddaad tirahdaan asagu nabigu sala allahu alayhi wasalam oo ilaahay ba dad badan baa jira dadkii xorriyadda dawladooda hadday tahay gaandi hadday tahay kuwii soomaal hadday kuwii soo wax may bedeli hadday tahay ragga kale aad soo afrikaada aada ku ammaantaan waa nimo wax qabto iyo isbeddel sameeyo loo soo xidhay lakiin magidaba way gaan may baqin baqdintii way ka gudbeen talabaad waxa laga yaaba qofku inuu is idhaahdo haddaad waxaad bedeshay tusaale ahaan shaqu ku jiraa shirkadiisu isula horumari shaksiyadiisu isula horumari waxa laga yaaba inuu is idhaahdo na armu dhaqaalo kaaga sii bataa armay hawsha kugu sii badataa waa talabaad ee cabsida inta badan keenta ta saddexaad waxaa keenta caadooyinka dadka hortaagan oo qof marba sii weynaado ma jeclayo inuu isbedbedelo ma jeceliyo iska jeceliyo inuu halkiisaa iska ahaado tashanaad waxa weeye qof inaanu marin dariiqyada lagu talagalay isbedel qaanuun bay leedahay qaab loo raacay leedahay oo wax laga qoray oo insha allah faahfaahinteeda meelaha lagu noqon doontaa haddaba waxaa isweydiinaa iyadoo caynkaasaa mal dadka loo shisheeyaa ma lagu canaanin karaa iyagaa dib lagu haya maa la dhihi karaa tusaale ahaan dawlad fulaan baa na caawin weyday dawladaha saasaa na haysta meel la dhihi karaa maya inuu inta badan dadku ashtaas ku mashquuliyaan maaha waxaynu kaloo ay leenahay inta badan isbeddelku xagga ilahay ba ka imaadaa macnaha si kale aadinti dhaho waxaa laga yaabaa inaad sanaado waa ninki maxaa ku dhacay isbeddel baad rabta inaad wax barato waxbarasha bay kugu soo degi kartaa way dhici kartaa laakin de ilahay asbaab buu sameeyey soo ma inuu qofku dawlad helo inuu aqoon helo ilahay buu ku siin karaa laakin maxaa laga rabaa asbaabteed baa rabaa waxaanad moodaa labada tafsiir ee aayaadka kusoo kala mari labada way la saari karo in allaha laa yugayiru xataa yugayiru maa bianfusihim labada weji baad ka dhigi kartaa waxaad ka dhigata inaad adigu isbedesho soo saas maa ilahay wax ma bedelo والنعمة هذا يسوق مو بدل إذا هذا ذكر سما إن الله ولا يدك لا حسين لا يغير يا نعمة لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم ما بدل لكن تذكر الحين كان إن يسبدل غيرها كان واحد حم بيسمعني مثلا بدل أما واحد ولا سمو سمعني أصير يسبدل لا ود وجيبها كذي كذا هذا واحد نقطة أنت مثلا اسمك ولا بدل اليوم qaabka dadku isticmaalaysa waad bedeli kartaa hadafkaagana waad bedeli kartaa tusaale ahaan maalin horaan ka sheekeyna oo macnaheedu haddaad dee gool leedahay oo rabto inaad wax qabsato meel aad u socoto isbeddel baad ku socotaa soo ma maalin maalinta ka dambeysa isbeddelkaasaad ku socotaa
talabaad waxaa la dhihi karaa isbeddelku wuxuu ku yimaadaa wasiilo qaabkeed wuxuu isticmaalaysaa bedeli kartaa soomaalida laakiin meelaha qaarkood beriga hore iyo masaajidada iyo bangiyada maxaa lagu qori jiray fadlan teleefonkaaga ha isticmaalin soo kuma jirto waa qaab maxaa rabtaa inaad dadka ka waanayso oo ka bedeshay inaana masaajidada teleefonka ku isticmaalin isbeddelku meel kasta u gelaya wax yaar wax weyn buu gelaya hadda baryahan qaababka loo qoray yaa xasuusta hadda bangiyada lagu qoro waad ku mahadsan tahay inaad teleefonkaaga isticmaalay ya horta labada arrimood mid kale say u kala duwan yihin anoo isticmaali lahaa markaan taa maqlo wuu sii kala xel jiraa soo ma tusaale ahaan waxay dhahaan nin indhoolaa baa meel wuxu dhigtay intuu meel baa dhigtay wuxuu ku oray war indhalaahe caawiya ayuu boor ku war nin kale oo suuqgeyntii waxaa aada ugu fiican baa arkay waxaa arkay inaan meesha ninka waxba ka helin boorkii uu ka bedelay wuxuu ugu qoray adduunyada aad bay qurux badan tahay laakiin anigu quruxdaas ma arko manhaju taqyiirka haddaad filadan isku arki soo saas ma adduunyada aad bay qurux badan tahay laakiin waxaa aada ugu xumay adduunyada ma arko ninka wuxuu arkay un bay dhahaan inuu aada lacag fara badan helo labadii marka maxaa kala duwan hadalkii qaabka loo kala isticmaalaya wasiilada ayaa aada iyo aada u kala duwan haddaba hadday jirto dhaqaale la-aan hadday jirto tacliin la-aan hadday qabyaalad badan jirto hadday wax dhib kasta oo jira waa laga bixi karaa waxaa lagaga bixi karaa shantaa qodob ee aanu soo sheegnay inuu qofka uu adeegsado isticmaalana waxaan kusoo gabagabayn doonaa 7 qodob oo 4 qodob insha allahu tacala ka sheegi doono oo lagu nasteexayn in qof kasta oo isbedel rabo qof kasta oo isbedel rabo isbedel doona waxaa ku fiican tahay in la dhaho isbedel doon weliba xagga loo bedelaya tahay التغيير إلى الأفضل laba qaybood baynu u qaybnay isbedel kooxeed iyo isbedel qof marka kaynu hadda ka warramana wuxuu noqon doonaa isbedelka kooxda tusaale ahaan meel wada wax ka bartaa shirkad baad leedahay tv-da daamusaa sida cabdilaayo waxbaa kuu dhisan waxaad rabtaa nin caan inaad noqoto dadka waxaas kala hadla waxaa lagaga baahan yahay qodobada inaad raadiyo marka hore waa inaad dadka garansiisid bay leeyihiin muhiimadda ay leedahay isku xidhnaansho dadku inay isku xidhnaadaan inaad dadku aada ugala hadashid waa inay jirtaa bay leeyihiin koox kula shaqaysan ood keliga aad ordeynin oo saddexaad waxay leeyihiin ha isku daynin haddaad doonaysa inaad wax badasho tusaalahaan maxaad rabta dadka inaad ka wacdiso ama shirkadaada aad ka horumariso shirkadaad rabtaa inaad horumariso ha isku dayin maalinba waxyaa tusaale inaad qaato oo ninka suuqgeynta aad bedesho kii kaasheerka aad la hadasho waxaad samaysaa isbedelkaagu inuu isku wada xilan yahay oo yahay isbedel markuu qof yahay waad kala tartiibin kartaa waxaan beri samee kan kala samee kan kala sameysaa waad ka dhigi kartaa laakiin koox markay tahay waa inaad cabdillaahi iyo maxamed iyo cali aad tiraahdo kan waa in la bedelaa qaabka meeshan waa in la bedelaa fadhigaas waa in la muddo intaa le waa inan waxaa ku qabsanaa waa inaad ka hadasho ta ugu dambaysa oo dadku ay aada uga tagaan maanta mawduuc kale ayn galnay waa inaad dadka ku qancisaa dadkuna waa inay arkaan inay kula sheergareeyaan oo aad fikradooda wadaagtaan intaasaan insha allahu tacaala aynu kusoo gabagabeynayna haddii alla ka dhigo mawduuca kooban inta ka dhibana insha allah idinka ku xiri doona intiinaa ku darin la shaargareeya maanta waa maxay isbedel baa muhima inaan isweydiinay gidigii khamiis baa qaadan jirtay shaati waa badashay shaati waa isu badashay suweel baa xiran jirtay maxuus baa xiran sax waa maxay isbedel marka gidigii aan isla fiirin isbedel wuxuu yahay waa in qofku ka gudbo xaalad uu ku sugnaa una gudbo maxay xaalad ka sarraysa ha taasaa isbedel lahaa tusaalaha koowaad maxaa u aragtaa waxaa ku soo geli jiray $10 saa maanta maxaa heshay maxaa maanta heshaa $15 ka waxaad lugeyn kartay 20 daqiiqo maantana intee lugaysaa 45 daqiiqo
luqaynta meelaha qaarkood mushkiladku ma aha laakiin meelaha qaarkood mushkilad kale ka tahay waxaa waaga hore sharaf ka lahayd agtooda 45 qof hadeerna maanta intee qof baa sharaf agtooda ka leedahay 130 ma isbedel ma isbedel ma isbedel la taabanka u sacbiya marka qofkiisa ay isu bedelay boqortooy weey ma jira qof saas sameeyay ha gidigeen waxaan rabnaa inaan sameeyno xataa isbedelaa jira marka aan muhiim ahayn iska dhaca isbedelada fiiri isbedeladaas maxaa ka mid ah waagii hore hooyo iyo aabe baa ku caawin jiray isku ku geyn jiray waa ku dhaqaqi jiray soo ma hadeerna isbedel soo ma isbedel ma taha dhahay ama maya isbedel marka macna soo kordhinaya ma la isku haya qowleyn miya aye bal midda ku xigta fiiri waagi hore waxaa jiri jirtay 25 hadeerna 46 waxaad kala baratay qabiilada Soomaalida meelaha kala galaan soo isbedel ma isbedel weyn أنا شيء دور واحد رجع شرع الله ويا ما أنت سرجع له أبوي إسبدل وين لكن إسبدل صح يا مسا خلط صح يا خلط منه ما أنت لو واحد تعمل شيء دواء ولا بكيرية برهذا المسكين وحاول إسبدل ويتهاي لكن إسبدل مع كوسي هذه يمد الأدوية أود كلها منه ما لما تنجب على إلهي يعمل كوسي هذا ميا إسبدل كذا نحن يسمى جاسيس مايا وحاول إلهي يكون جاسية وحبا أبو كمان سمي marka waxa la isbeddelada caadiga qofka ku dhaca laakiin uu asaga awood u lahayn ruuxa isbeddelka sameeyay 4 su'aalood 3 su'aalood bal looga baahdaa laga rabaa mar walba inuu maanka ku hayo haddii isbeddelkii waxa ustaad jaamac qaybta dambe uu kaga hadlayay qofka inuu sameeyo waana midka inaga hadda muhiimkeenu ah in ummadda badalno waxa ka horeeya maxay in inagu isbeddelno koow maxaa marka inuu qofku isku qanacsan inuu isweydiiyo maxay ma isku faraxsan tahay intiina meesha joogaya isku faraxsan yaa ma isku faraxsan yaa kala isku faraxsan waa isku faraxsan aye ما يسكون فرح سنة ما يسكون فرح استواسة أيه هيك أشوف تبى أول مرة لقاها أنا ما يسكون فرح سنة واسطة يس هذا لو أني ما بيش على تصور كم مرة بدنا نقول يا إحساس بدنا شغراوي والله ما يسكون عسين مرك ما يكن يسكون مكان عسين كان كلامنا ما يسكون عسين سؤال شاف مرك كوباد ولا سويدس واحد خصوصا تصدق لينو صدق لين بواحد لين يشترين واحد يشتري ضد كان دميرها بيها كوداش أمين كده بين مجال وضيع حتولو لحن تفرستين بشكل ورياض محارب أنا نقطي بدأ واحد ربعنا من وضع المدحوينة كان نقطي كي كلا يري محارب تأسوي هذا المدحوينة نقطي كمان المجال وقرب بدن يقولوا مجال وقرب بدن مكانه كي كلا يري مدحوينة هذا نقطي مجال ده نقول سووريتش بيه أنت بحول المريسان كذا أنت بحول المريسان مجال أنت مريسان تقول ريتش معنا هو يصير يعني نقول كرواحس نيكي وحبو اسكو حريره وحبو اسكو حريره اللي يسبدل بوبا صداي توصل شيء توصل كدي مدحور ودن كانوا labadii uu yeeray Soomaalidu meesha qabsaday kii gabadha iyo guriga rabay kaas waa u dhacay kii kale waa ku kaftamay kaftan baa ku dambeeyay kaalay intuu baashi mariyo magaalada ku soo wareey taas waxa ay isku faraxsan tahay heerka aad joogtid ma ku qanacsan tahay sidaada inaad ahaatid ma iska rabtaa mise waxa taana hore u qaadid ma jiraan wax miyuula oo aad leedahay oo hore ku higsanay qofka isbeddelka doonaya waa muhiim in su'aashaas isweydiiyo hadduu su'aashaas isweydiinin ma hore ma socon karo waad xusuusataa qisadii kale odayga laga sheegayay oday ari yar lahaa baa inta arigiisa caana ka maalo caagadiisa weysada dhaansaday oo ariga xariistay wixii abeeyo daajinka la sheegay si aniga geeyay 20 neef baa haystaa bas qaybta ugu dambaysa waxa weeye oo qaybtaas la socota suuragal ma tahay inaad gaartid heer ka sarreeya heerkaad hadda joogtid dhinacee xiriirkaad ilaahay la leedahay kan naftaada aad la leedahay ehelkaaga iyo bulshadaada qof isbedel doonaya inuu saddexdaas weydiiyo ilaahay xiriirkaad la leedahay kor ma u qaadi kartaa naftaada xiriirkaad la leedahay kor ma u qaadi karaa ma hagaajin kartaa cayladaada iyo familkaaga ma hagaajin kartaa ehelkaaga bulshadaada iyo sidoo kale dawladdaada waxaad xusuustaan qisadii dheereyd ee Cumar ibn Cabdilcasiis yiri inna li nafsun tawaaqa waxaan jecel naf wax kasta jecel laakiin wax kasta ay jeceshay way gaartaa maxaan jeclaaday markii ugu horeysay inaan guursado gabadhii adeerkay dhalay oo Faaduma bin Cabdimalik sama guursaday saanin barasaab laga dhigana waa jeclaada saan barasaab baan noqday saanin aan qabsado khilaafada dhan aan qabto Cumar ibn Cabdilcasiis khilaafada dhan aan qabto saan khilaafadina waa qabto haddana waxaan rajeynayaa inaan jannada jeclaa in ilaahay janna iga dhigo afar qodob marka asaasaha jira sida ustaadku noo sheegay oo qofka isbeddelka shakhsiyan sameynaya laga maalmaan u ah koow waxa waa inaad bedeshid markaad rabtid inaad isbeddel dhaba qaadatid wax alla wixii hore dhan qaabo kaaga dhan maxaa ka mid ah waxa bedelaysid cuntadaada waa hore galay baa cuni jirtay hurda qaban jirtay duhurkii maanta kala qeyb soo ma jiro beer baad cuntaa maba kici kartid
انت اسكي لسه حبو تباتي وقلنا عن مان كل وريك بيركون صح كنا واس بدرس بدل بقى cuntada واس تصال waxaan koo laga yaabaa badis labiskaaga dadka qaar waxa jira maryaha qaar kood marka xirtaa ku hurdooda oo waxaan la yaqaan sidaadana marka aad maryaha qaar kood qabtid waa firfircoonaysa maryaha qaar kood hadaa gashtin hurda ku qabanaysa hurdada caadiga caajis baa dareemaysa waa waxa la ogaaday waxa sheegay ma waxa iska sheegay hadaa si fiican u labisatid waxa laga yaabaa hatta aqliga uu kor buu koraya mara laba bilood ka hor la soo dhaqayo jajubti oo duuduubata hadaa qabtina hooyada magaceeda garanaysa waxa dunka lagu ogaaday marka waxa bedelaysa maxay labiskaaga waxa bedelaysa habka jarashada maxaa cali waliga ma iska bedesha ma istiraadina bishan waa inaad nolol cusub soo siyaadid jarashada iska bedel waa samaysama habka jarashada waa bedelaysa macnaha waxa weeyaan waa lagu kala duwanaan karaa gabdhaha kama hadlayo waxaan ka hadlayaa wiilasha gabdhaha hadda inay jarayeen cidka cidna ka dhamaysa waxaad bedelaysaa habka hurdadaada waqtiga haddaad rabtid inaad isbedel samaysid waqtigaa seexan jirtay waa inaad bedeshid tusaale ahaan haddaad waaga hore saamaleeli jirtay maalinkiina shaqada ku dhaafi jirtay haddeer bedel wax dada go-aan baan qaatay 3 saac laga bilaabo cishaa markaan soo tukaday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam naamray markuu qofku cishiisa tukado inuu inta gurigiisa tukado seexo salaad subax u kac 10 saac ka hawsha xilliga qabso kala habayso hurdadaada bedel laakiin haddaad rabtid qaanuunkii ustaad jaamac ka sheekeynayo loo dhaho qaanuunka doqonnimada waxaan rabaa inaan isla sidaydu u shaqeeyo macluumo arrintu isbedesho kaas xamayso circle-kaas marka aad uga jeedaan meesha ama sawirka uga jeedaan oo saa isaga daba wareegayo 10 ka midaba waa shayaasha laga rabo inaad jidgood isla bedeshid markaad wax bedelaysid inta waa laga ha ka sugin isbedelka cid kale shakhsiyan waa in adigu go'aansatid haddaad rabtid inaad isbedelka kuu keeno qof kale macquul ma waxaana la ogaaday go'aansiga adigu aad go'aansatay oo go'aantaada inuu ku jiro inaad isbedel samaysid isbedelkaad markaad la timaadidna ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid qof isagu rabo inuu nidaam qabsado ilaahay inuu wixii ka hor joogsado ma dhacayso kumana timaadaba sunnada ilaahay haddaad isbedelka go'aansatid ilaahay waa ku bedelaya aayadda quraanka hadana ku dul akhriyay allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim adduunka sidaad u aragtid waliga adduunka sidaad u aragtid bedel ninkan halkaa idinkaga muuqdo sawirka indhaha maxaa ugu xiran indhaha waxa u gashan muraayadaha u gashan waxay tusayaan wax kastoo wanaagsan sideedana adduunka waxaa la yidhi qof waxay ku xiran tahay noloshiisa indhaha muraayadaha u xiran hadday muraayado balaagaa ku xiran yihiin waa jirtaa mararka qaarka qof baa isa soo raacaysaa wuxuu ku leeyahay siciid ma taqaanaa ba leeyahay suuli haa kan dhibka badan ba saadeed heblo ma taqaanaa haa midaan inkaarta qabtaa muraayado qabo maxay yihiin wax khayra ma arkaan laakiin qof kale laga yaabaa dhahay war ma taqaanaa cabdullaahi haa ninkaas nin fiican wey gabar heblo ma taqaanaa gabadhaas gabar khayr badan hooyadeed baa aqoon jiriya awowgeed soo ma naag dadka qofba marka lagaa rabo qofku inuu isbedel sameeyo wanaagsan waa inuu xiran yahay muraayado khayr leh waxayna dhahaan isbedelka marka la sheegayo ma ahan in meel kale laga raadsho oo qofku leeyahay ha go'aansan ayaala asaasiyaadka qofka looga baahan waxa kamid ah maamaadi caankaaga loo oran jiray 1000 sano inaad 1000 sano mugdiga habaartid oo lacnadid waxa kaaga fiican maxay inaad adigu shumac sheegatid ku kalsoon oo nafsadaada kuna fakar cid aad rabtid inaad ku dayatid halkan waxaad ku aragtaan nafsadaada muraayad baa qof walba ku fiirinaya nafsadiisa muraayada qaar baa qofka waxbuu si u arkaa halkan waa bisad baa la waxa muuqda maxaa u muuqda libax baa ugu muuqanaya yes bay leedahay wallahi inaan bisad ahay libax baa haddaad laakiin adoo libaxa isku fiiriso bisad kuusoo baxda ka warama xoordhubu haddaad marka muuqaalka isu aragtid adigu waa inuu kalsooni ka jiro qaybta labaad cidda aad rabtid inaad ku dayatid 2 qof baan soo saarnay waa Mahatma Gandhi iyo Dr. Ibrahim Fiqi labadii ustaadku maanta daliilka lahay waxaan ku wareejin doonaa inta badan tusaale u qaadan doona anigu waa daalansan hadda laba Soomaaliya soo qaato waxa la 4.5 ka soo dhig 4 ka soo dhig soo saas ma laba Soomaaliya ku badan waan garanayaa adduunka wax ku soo siyaadiyay laakiin lama dhigi karo Sheekh Mustafa hadda saartay kuwa ku dhaya sheekhi kalimeeyo qoladiya waa qof la taaban kara dadkan asaga ka qiimo badan laakiin mushkiladaas aan dareensan haye ya qof kasta marka inoo furan tahay qaybtii kale waxa waa busy qofku yahay dad cilmi aqaan isbedel ma sameyn karin tabada isaga wuxuu dhahay cunaa shicir dheer waxa uu dhahay intaqana shakawtu la wakiic sawa xibdi fa arshidni ya taraka al maasi ugu dambeyntii markuu dhahay cilmi ma heli karto dhahay akhi lan tanala al ilma illa bi sittati runaj سأنبئك عن تفسيرها ببيان شن لحر وشيء مركب هذا لحر أرأس مسؤول هاي بس بدل سمعناها علمي جواهي لسان وحولها ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة أستاذ وطول زمان لحر محوجة لحر وشيء ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان لحر وشيء منها وحولها الدلال هذنا الدلال إرادة هذنا وحولها هنتي العقل هذنا وحولها وأنا معنا صحيح تراها معنا كذا
هذا نحن وين وحي وقت درس سوداء يحنا وشيء منها يصير واحد هرقا قف كستoo inaga naga bada waa rixdii imaam Shaafici ku dhago aad oo maasan tahay يعني واحد مركز أسباب وباهم تهاي دي مركز أديك أدركتنا يسبدل سميسو ماشي بمقدية يسبدل ورا ومسؤول بس يعني قف كانوا بلا عمل الساقط واسع أنا ورها صورة قلمة سمالنا واحد عن حق الله بن قالوا كمية مهدان وحويا أنت ده اللي مهدو إلهنا لك عشرة مركز هرنا قلبي هدو يسبدله ابنيه هو يسبدلك لكن قلبي هذا يسبدلين ومارة الخرافات بلاي كلا أما قلبي جوا حلابه ابنيه هو اللي قام هلا تكرر ممكن أنت بمحارك سلوك يدق أنت بتهبان وحال بدلو ده يلا شيء كي يلا شيء جاب هلا حد يصير هلا يلا قفك قلبي يسي يوحي يسينا لما كان ومارة تسي توصلت صحيح ما بقى عمر هذا مركولنا استراحة وحن بدل يعني قفك دقن كيس ما بدل يسيد إلا وقلبي يسعد بالشيء وكان يسيد أنت سنتصف أدو ما سنت أستاذ عبد الرزاق توبر عبد الرزاق زمزم عنده خضره توبر خضره ما هي أستاذ عبد الرحمن بسم الله الحمد لله وبعدين كان من موجود أنا أسأل الكون أما التقلب النفسي أما بصنا الترانسفورميشن هذا هو غيرني كوكينا هذا شنقان مركل وقتنا ولا كنا مركل لبعض وإنه كاس هدف أما يول ومسنا بهذا مركز بحد قفاس إنه هدف كاس بحان يبغى أنتهي مركز أفراد يليه ما بيسنينه أما يهرنان مركز شرط إنه قشلة وحلي عن جلو كل كرسول لعنا مركز وحول بهالمال مقام جدا عن جلسة سوى كل صور رئيس الله قفل بسوق فهم يوي وضع عم قفك مقدر جرو عن جلها الله يابي هاي مركز مقدم بيسو قفك إنه الصبر أم دبر عليك سنة يا وأنتي سوق قالوا قفك أنت اللي هلا التغير النفسي وصلنا كرا أنت سنة هذا ما سنتهاي عبد الرحمن سام سوق عبد السيد سوق توبر مع عبد يعني كاغور مرة محمد عبدي هذا الإسلام هين أحمد بدري كلامي تغير كا وأوصل لابرنا أستاذ عبد الرزاق هذا الكيسيا قف إنه يدوم الكورة بدله وعقيدة الصحة لك يعني وحلا يعني يكون مع نسبة المسلمين تا لكن ضد بدن بتجروا دون كعنك واحد بدلي لكن المسلمين هاي مركب الوفي شو مسلمين واحد رأينا عقديا يجيستك لو يسوي بدلا لكن قف مركب واحد كذا يعني يسبدل كان كذا إننا واقع عام كا بسم الله توبر معاد أنا حقدر يا قارو هو عن قارو أنا حرص على إنسان يسبدل كهني كقول قارو يا مدة بعد أبصر هذا هو إنه بيان كله ما كلا صوت شيطان يعني هذا هو أبصر إن بقى على قف كلا قارو ويسويدي واحد أفكار بقى سكها هذا الناس بدرشة ما هي وقال ما أفكار صوت على أنا هذا أفسر كده أفكار شويات هذا وحي معنتي وقال ما هنا كبقى هاوشاس بوشة عن قاري لها ما أنت إيه مقطع أنا إيه استكتم وقال ما مثل هذا القدر هذا قف إنه بالغالية مركز بدل أنا سطوع هكسر عقبات بدنا نكفر إيمانية أنا أيضا هاي إيمان أما نفترض هاي إيمانية أما نظام كذا ما قلنا على قبسي يسوي هاي إيمانية قف إنه يشد القات أو ما يشد القات كذا اسمه سلاح قوي هذا ما سنت توبر محمد عبد الله مجتمع واحد رسول كردية لكن قفك مثلا بفرد يعني واحد لا يسبدل كلامين وكان وإنه لا يروح مقام معناه إنه يعني قف أو مرة برضه معناه خطر سواء زوجتها يسبدل كوحال ده هاي قف كان عبسية كعبين يشتغل عبسية لو حنت هاي إنه كعب سنة إنه فشل يعني أما إنه وحنا نكون نجيبه هاي لكن إنه لا هاي روح المغامرة وقف يعني قف مغامرة وعبسية هراء وين يسوون توري كلا وأنا عبسية إنه قبيل تكلا إنه جرى تحدي وانهل كرا وانسمين كرا وقفكم أول باب ونيتيسا وشيء تحدي نفسي سلقنا تحدي وضدك جدا أنا مرتا جن لقنا وسكت إنه وحقاره هذا تغيير كفما إمارة هالمر إلا بودو لكن حكوا إمارة خطوة تلابو ما أنت تلابو ما أنت استوى ده تلابو هو قادر تغيير كذا أم إثبات كذا وحاولنا سئنا ما نمرها كم إذا سويت عبنيس أنا قديم كعقبنا وحتى هاي حيسو وحلا دهان كثير إثباتنا الرباع وحبرش الرباع مثلا الإنجليزي رواينا برتو لو بريان تجا كبعدي وانكحي سدعة فرهم كقادة أما أصحاب تيجي أكبر حيكودة كي ماشي وكهرة مركحيسها إن لقوا حق ونقض قف كتاب كيسة
waan baana anoo ku hadlayo waa la arki doonaa ama anoo wixii sameeyey ama helay waa la arki doonaa imaadaa qofka inay ka go-an tahay go-aan daakhili ah oo gudahaaga ka buuxaya aragti fog ru'ya yani ru'ya waxaan dhahay jiro aniga waan u jeedaa isbedelkiyaa u jeedaa natiijadiyaaba haddaad tusaale ahaan rabtid khadra waxaa ka wadaa madaxweyne rabtaa inaad noqotid adoo waxaa waa inay kuu sawirinta adoo kac anoo madaxweyne oo laysalaamaya haa sax marka inaad buucda ru'ya inaad leedahay oo arki kartid hadafkaaga inta badanna qofka markuu hadafka afka ka sheegay dadka ag jooga ee ama aragtidooda gaaban tahay waxaa laga yaabaa inaad kaas heli kartid ma gaari kartid sida kitaabka aad noo sheegtay ninkii madaxweynaha noqday marka dadkan waxay ku dhahayaan adidheg ha u dhigin ka soco qiso yar idin sheega waxaa jiraan ahayd diin tartan gale diindiyada markay tartan galeen hal diin dad xoolihii kaloo dhan way ku qaylinaa diina ahayd awalba ma socon kartid saasay ku hayeen hal diin basaa gaaray meeshii u dambeysay markii la arkay waxaa la arkay inuu dhagala yahay saa wuxuu u malayna dadka qaylinayo dhan inay marka saas ugu guulaystay dhagala-aan iska raba qofka inuuna waxaas ka dhaga xirto uu hadafkiisa bas ay u caddahay oo nuu yahay هذا في عن مطلق هذا ما سنتهي تقول الله سبحانه وتعالى ويكون دليل العصر ولا سبحانه وتعالى دليل تقول الله ويعلم تقول دليل العصر هاي ولا تقدر كذا لو تسكن عن ترى حتى أو مسلمين تاع أما مثلا على سحدين ولا سنين الوقت شهر أو مثلا واحد مسلمين ناس كانت تشتي الله صلى الله عليه وسلم وشاورهم بالأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ومركي أنا أقسم وأجمع فأنا مهم ولا سمسمتي لا تصمم كذا شيء كدي مركي قال لك هذا فإذا عزمت فتوكل على الله إله سبحانه كده تصمم مهم حقر متى أقدر أقول لك أفكر إنه صعب كبير مثلا من بلد إلى بلد أسهل مثلا نيجي أصبح كل شيء بادي كل شيء سجل بادي كل شيء كدي مجال صغيرة عملي بعمل كم زيادة عملي بادي كسرنا عملي كل ما مجال مو زيادة هدي مجال كل شيء مجال زيادة مجال الكسر ده بس كتير عملي كوين هذا معنا مرة حرام مهم ومعناها إنه خوف يسافر كسماء وإلى فلان يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عطف هذا ما سنتهي هذا ما سنتهي قد مركو ورس قفك على وباين الله إنه قان قاتو قان إنه قاتو isbedel waxa ku sameyn kartaa waqtigaada inaadan kulmin mala yani waxyaabaha sida sportiga oo kale inaad TV-da daawato inaad meelaha iska fariisato sportiska ismacna la isma raacsan inuu yahay inuu mala yani ay sax adiga fikradaada isbedel waxa ku sameyn kartaa si aad isbedel u sameyso looma baahna inaad dad u calaacasho oo dhahdo oo waxyaabihi ka tagi kale inaad dhahdo waa iga tageen oo saan waa ina calaacasho looma baahno si aad isbedel u sameyso qof si aad isbedel u sameyso noqo qof mas'uul ah si aad isbedel u sameyso ha ka xishoonin howlaha culus sidoo kale si macnaha oo waxaa kusoo koobaya marka saddex nin oo aniga aan garanayo oo ilaahay baryay waxay ku baryeen midna wuxuu ilaahay ka baryay cilmi inuu ilaahay siiyo midna wuxuu ilaahay ka baryay inuu hanti siiyo midna ilaahay wuxuu ka baryay inuu caruur siiyo saddexdooda ilaahay ducadooda waa aqbalay midkii oo caruurta ilaahay siiyo caruur fara badan ilaahay siiyay wax hanti ay wax cilmina ma helin midkii oo hantida helanay ilaahay caruur ma siinin hantida oo fara badan la siiyo dhulka la siiyo waxa la siiyo beeraha la siiyo wax kasta la siiyo midka cilmiga lahaa saddexda ilaahay isku daray cilmiga iyo hantida iyo caruurba ilaahay isku daray marka waxa dhici lahaa qofka markuu isbedel sameeyna marka inuu ducada badiyo wabillahi هذا ما سنتهي واحد صوح سوستي استجمعوا معنا سوى 10 كذي وحي يوم بقى إلهي كلهم بحر النار محرم لنا نسي كلهم محرم لنا إلهي رئيس يبلغ سالي هذا محرم إلهي ولا ويالس يعرف مركبات يوركاي ما يجيني كاس حولا كفكر كيكل واحد كفكر واحد أصلا واحد كبابية marka waxaan rabaa hal mar su'aal weydiiyo qaybta gabadha marayna yaa raba nolosha oo hadda ku jira inuu iska bedelo oo wax kala noqdo aniga hadda waxaan ka hadlayaa yaa raba nolosha oo hadda ku jira tamaaman yaan rabin oo raba inuu nolol ka duwan yaa nolol kala raba asaka wax sameeyo aye aniga soo koobay ismaaciil ana waxaan rabaa saacada la joogo ana shaqaale haye waxaan rabaa bilaa soo socda inaan aniga boss noqdo ka ha waxa waan taawan kara qof marka waa inuu caddahay haddeen anaa shaqeeyo bari waxaan rabaa inaan shaqaale yeesho waan iga go'an
هيا قفك المجرى انت انا حافظ أربعين هذا هو ما سنتين انت سبزوك وقلنا برنامج مانتي الى يكون كان الضبط مالك حقيقة برنامج حرير غير النقطة